السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دمانتين واد السلام يا ملك استادني دافيدا كجسو جنتيهين سلام كبعدي وحدوني إن دمانت مقال كينا أما ببرنامج كينا كسو قد بنا مقال ديري جلين مقال كاسينا قد ديري جلنا يا إننا من نبى مرجونا سبب بدن أوشرا أو جود هدي أدوني سمقال كان ديري جلين إن الدقيستو sidoo kalena aad ka faa'iido la sii soco barnaamijkeena maanta haddii alla ka yeelo. inteena barnaamijkeena maanta u gudagelin waxaan ku xasuusinayaa haddii aad kanaalkan ku cusub tahay inaad nagu soo biirto si aad waxyaabo badan u faa'iido una ogaato. haddiinu barnaamijkeena maanta si toos ah ugu gudagalno soo qabanno mawduuca koowaad amaba sababta koowaad ee aanad u murugoonaynin. markastood dhibaato dareento waxaad tidhaahdaa yaa allah, sababtoo ah dhibaatadu si walba ay u weyn tahay waxaad haysataa allo weyn oo kaa saaraya dhibaatadaas. gacmaha u taago oo isaga u dhawaaq, ma jirto awood ka sarraysa ducada, sababtoo ah waxaad xiriir la samaynaysaa midka adduunka iyo cirkaba iska leh, midka u bedeli kara dhibaatooyinkaaga oo dhan xal, xanuunadaada oo dhan caafimaad, ilintaada oo dhan dhoola caddayn, sidoo kale riyooyinkaagana u bedeli kara dhammaantood suuragal. waa kuma midka dhibaataysan marka uu gacanta u taagto ka fayda dhibaatada? waa kuma midka ku siin kara farxad, deganaansho, raaxaad ku dareentid qalbiga? waa kuma midka gacmihiisa ay ku jiraan adduunkan oo dhan oo aanan cidna ka sarraynin, wax walba uu rabana ka dhacayo adduunkan? jawaabtu waa allah. dabcan qof kastaba uu garanayaa. allah wuu kuu jeedaa, allah wuu ku maqlaa, allah qalbigaaga waxa ku jira ayuu ogyahay. haddii murugta ay kugu siyaado, fiiri samada sida ay u weyntahay iyo allah samadaas abuuray inay xaaladaada ka qarsoonayn. kadibna dhoola caddee, naxariista alle marnaha ka quusan intaad koonka saaran tahay ama baad nooshahay. haddii uu adduunka oo dhan ciriiri kugu noqdo oo aad dareentid culays sida adduunka oo dhan in dushaada la saaray oo kale, waxaad dhahdaa yaa allah. haddii aad dareentid murug, cabsi, walwal iyo walbahaar aan dhammaad lahayn oo aad weydid waddo aad murugtaas uga baxdid, waxaad dhahdaa yaa allah. haddii lagugu imtixaani jiro aadan habeenkii seexanaynin ilaa adiga oo xanuunsan subaxdii markaad soo kacdid la kacayo adiga oo ku haayo xanuunkii, waxaad dhahdaa yaa allah. haddii wax kasta kaa qaldamaan oo qorsho walba oo aad samaysay kuu shaqayn waayo, waddadaad ku socoto kula noqoto buur aad korayso, waxaad dhahdaa yaa allah. haddii lagugu leeyahay dayn oo maalin walbaad ka fakiraysa dayntaas iyo sidaad u dhiibi lahayd, waxaad dhahdaa yaa allah. haddii lagu dulmiyo oo lagugu xadgudbo, maalin walba lagu dhibaateeyo oo been lagaa sheegayo laguna xamanayo, waxaad dhahdaa yaa allah. haddii aad si fudud u weydo wixii aad muddo dhan ku soo tabcaysay ama baad u soo dadaalaysay, waxaad dhahdaa yaa allah. haddii lagugu tuhmo wax aadan geysan, dadka oo dhanna isugu markhaati furaan inaad samaysay, waxaad dhahdaa yaa allah. haddii aad weydid hooyada, carruurtaada, aabbaha, xaaskaaga, gurigaaga, shaqadaada iyo waxbarashadaada iyo wax kastood jeceshahay oo dunida saaran, waxaad dhahdaa yaa allah. allah wuxuu leeyahay addoommadayda waan u dhowahay, waana ka aqbalaa ducada marka ay wax i weydiisanayaan. mar walbaad dhib dareentid, gacmahaaga samada u taago, waayo allaha ayaa sidaa kugu yidhi. oo waxaad dhahdaa waad ku celcelisaa, ilaahayow aniga waxay taabtay dhib, adigana waxaad tahay mid naxariis badan. mawduuca labaad ee aanad marnaba u murugoon karin adiga oo haysta ayaa waxa uu yahay ducooyinka badan eed ilaahay ugu ducaysan karto. adigoo weliba Soomaali ku ducaysanaya, waxaad odhan kartaa ilaahayow xaaladdan ku suganahay waad u jeedaa,
adiga ayaana iga bixin kara xaaladan. Ilaahayow iga bixi oo qalbiga ii qabooji. Ilaahayow waxaan dulmiyey naftayda, haddii aadan ii dembi dhaafin oo aadan ii naxariisan waxaan ahaanayaa kuwa khasaaray. Ilaahayow ka yeel indhahayga kuwa arka waxa wanaagsan, lagana qariyo waxa aadka u xun. Carabkayga mid khayr ku hadla, gacantayda mid dadka u gargaarta oo aanan dhibin. Qalbigayga mid cafis badan oo aanay cuqdadi ka buuxin. Naftayda mid ku mashquusha wax faa'iido leh oo aan ku mashquulin dadka kale iyo weliba maalayacni. Ilaahayow ii rumee riyadayda, ii iftiimi mustaqbalkayga, i gaarsii guul, ii barakee waqtigayga. Ilaahayow isii sabar iyo adkaysi marka wixii aan qorshaystay u shaqayn waayaan sidii aan u rabay. Ilaahayow adiga ayaa garanaya waxay wanaagsan ee igu caawi inaan aqbalo qadarta iyo wixii aad ii qortay. Intaas ayaynu ku ekaynaynaa oo ku joojinaynaa barnaamijkeena dhiirigelinta ah. Run ahaantii barnaamijyada dhiirigelinta ah waa barnaamijyo aad u faa'iido badan, dad badanna ay ka faa'iidaystaan. Haddii aad doonaysid muuqaaladan inaynu majority-ga ka dhigno oo aynu badino, muuqaalkan like saar. Haddii uu yeesho like aad u fara badan, insha Allah waynu soo kordhin doonaa. Haddii aadan ka helina, dislike way kuu furan tahay. Waxaan mar kale ku xasuusinayaa haddii aad kanaalkan ku cusub tahay inaad nagu soo biirto si aad waxyaabo badan u faa'iido, sidaad iminkaba dhiirigelintan aad soo dhageysatay u faa'iiday. Waa aniga Maxamed Saciid Cali Maxamed Xikmaawi, halkaad ka dheehanaysaa barnaamijkan waa Kaska Media. waxaan idinkaga tegayaa salaamullaahi calaykum.